ninba dayman qaali yuusita nin tuuga ayaa arkay wuxuu rabaa daymanka dahabka qaaliga inuu ka dhaco ka xado waxa uu ku yidhi halkaad u socotaa wuxuu yidhi tuuladaa baan u socdaa aniguba tuuladaa baan u socdee waxaan israacnayna mari buu ka yidhi waa tuug tuuladaa isagu uma socdee jawharadan iyo daymanka qaaligu ninkani watuu rabaa inuu ka dhaco ka xado maalintii oo dhan way socdaan habeenkii ninkan waa daacad oo iska seexdaa laakiin tuugga habeenkii ma seexanaya uu shaqaystaa markaasuu saqdii dhaxa uu baadhaa jeebadihiisoo dhan buu ka baadhaa uu ka waayaa waa berigana wuxuu arkaa ninkii oo gacanta ku haysta oo la soo baxaya oo eegaya xeraysanaya wuu yaabaa war waa kan habeenkii o dhan waan raadiyaaye habeenkii xaguu dhigaas maalintiina u haystaaye haddana habeenkii kalea soo galay sidii iyo si lamida uu arkaa isagoo haysta habeenkiina uu ka waayaa maalinkiina wuxuu arkaa ninkii oo haysta magaaladay u socdeen markay u dhowaataybu runta u sheego wuxuu ku yidhi anigu tuuladaa baan u socday waxaana kuu soo raacay jawharadda qaaliga inaan kaa dhacon kaa xado maalinkiina waan arkaa adoo haysta habeenkiina waan kaa waayaa habeenkii halkeed geysaa buu ka yidhi wuxuu yidhi cadceeddu markay dhacdo dhulku madoobaado ayaan jeebadayda ka soo saaraayoo jeebadaadan ku ritaa buu ka yidhi xaguuna ka raadinaya isagu ya jawharadda qaaliga isagii jeebadiisay ugu jirtaa habeenkii laakiin meel kaluu ka raadinayaa mithaalka maxaan u soo qaadanayaa war waxaan ku liibaanaynaa adduunkan iyo aakhira innaka haysanna waa ilaahay amarkiisa waa islaamnimadoon sideeda u qaadanno waa qur-aanka kariimkoon barannoon ku camal falloon ka shaqayno oo wuxuu noo xalaaleeyeyna aan xalaalshanno waxa uu qur-aanku naga xarimayna aan xaaraan u aragno nebigeenni moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaamna aan ku dabadayanno taasay liibaantu ku jirtaa laakiin maanta liibaanta muslimiintu meel kale ka raadinayaan amniga meel kale aan ka raadinaynaa ilaahayna amniga iimaanku ku sheegay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyey tabaaraka wa tacaala walam yalbisuu iimaanahum bidulm iimaankoogana shirki aanan ku ladhin amniga kuwaasa helaya baa ilaahay yidhi amniga ilaahay ciidan kuma xidhin dowladna ilaahay kuma xidhin ilaahay amniga waxa uu ku xidhay iimaan dhabaa ilaahay ku xidhay hadday dadku iimaan dhaba la yimaadaan oo iimaankoogaa shirki ayna ku ladhin ilaahay ballan wuxuu qaaday amnina inay helayaan hanuunkana inay kuwaas ay mutaysan yihiin nolol wanaagsan baan doonaynaa kulligeen soo ma rabno ilaahay nolosha wanaagsan wuxuu ku sheegay iimaanka iyo camalka saalixa man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan طayiba ilaahay baa leh iimaan iyo camal saalix qofka laga helo labiyo dhidig midku dooni ha noqday baa ilaahay leeyahay waxaan ku noolaysiinaynaa oon ku noolaysiinaynaa baa ilaahay leeyahay nolol lagu noolaato ugu wanaagsan nolosha adduunyada ugu wanaagsan ee ugu macaan waxaa ilaahay ku bixiyaa iimaanka iyo camalka saalixa innagu waxaan leenahay maanta iimaankiina waan leenahay salaadiina waan haynaay oo camal saalix bay ka mid tahee noloshii wanaagsaneeda ilaahay ballan qaaday mee baan leenahay waa kan muslimiinta maanta adduunyada ay rafaadsan yihiin ee dhibaataysan yihiin iimaanka ilaahay qur-aanka uu ku sheegayo iyo camalka saalix ee qur-aanka lagu sheegayo iimaankii camalka saalixa kan maanta innagu aan haysanno maaha waa kay saxaabadii rasuulku ay haysteen waa iimaankii qalbigii abibakar ku jiray iimaankii qalbigii bilaal ku jiray salaadii abubakar uu tukanayey salaadii abu hurayra uu tukanayey salaaduu cumar tukanayey ta loo jeeda waa taa weeyaan waayo dadkaasaa u ahaa iimaankii camalka saalixa mathal baa ilaahay u soo qaadanaya mathal waalmu'minuuna kullun aamana biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaahay baa u markhaati kacay inay mu'miniin dhaba ay ahaayeen oo ilaahay ay rumeeyeen oo ergada ay rumeeyeen oo kutubta ay rumeeyeen oo aakhirada ay rumeeyeen oo rususha ay rumeeyeen maadaama iimaankoogu ilaahay uu kaamil ka dhigay kuwa loo jeedo waa kuwaas adiga maaha iimaanka ummadda la doonay in la gaadhsiiyana waa iimaankii saxaabadii ugu nin muslima ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi
quraanka waxaan ku haynaa wa kaana haqqan alayna nasrul mu'miniin waxa ilaahay leeyahay waxa xaq nagu ahaaday gargaarka mu'miniinta maanta adduunyada mu'miniintu waa kuwan dhibaataysan oo gargaarka ilaahay wuxuu ilaahay mu'miniin buu yiri gargaarka ilaahay waa noo ballan qaaday inuu noo gargaarayo laakiin mu'miniintu quraanku sheegaya ma nahay maanta inaku kalimatul iimaan quraanka way ku taalaa laakiin mu'miniintii aawaya kalimatu taqwa quraanka way ku taalaa laakiin muttaqiintii aawaya kalimatul muhsin quraanka way ku taalaa laakiin muhsiniintii aawaya kalimatu sabr quraanka way ku taalaa laakiin saabiriintii aawaya kalimatul qaanitiin quraanka way ku taalaa laakiin qaanitiintii aawaya kalimatul ilmi quraanka way ku taalaa laakiin culimadii rabbaniyiintii aawaya kalimatu dhikri quraanka way ku taalaa laakiin dhakiriintii aawaya sifaadkan quraanku uu sheegaya la rabaa inay quraanka ku taala maahine waxa la rabaa waxan quraanku uu sheegayo dad noloshooda ay ku qorantahay in la helo loo baahan yahay khilaafadii Uthman bin Affan radiyallahu anhu ayaa nin yahuudiya masjidka soo galo yiri aaway quraankiini buu ku yiri muslimiintii waxay u tilmaameen Abu Darda ila wakan quraanka yagi Sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu anhu ayaa suuqa magaalada Madiina soo galay iyadoo salaadii ay dhawaatay oo dadkii bacdaaradii iyo bakhaaradii iyo baagaashlayaashii iyo dukaanadii intay alaabahoogii oo dhulka sida u yaala ay ka dhaqaaqeen ay masjidka u aguugayaan xagga dambe siigadii boorku ka kacayo markaas Umar ibn Khattab wuxuu akhriyay aayada quraanka ninkii doonaya inuu arko aayadaas rijaalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي دونا يا آيات دايو شقين سينو أركو أصحاب محمد وكوا سيقبو يدي ما أنت إنك السوق يدين ولا ليال مركا لا إعدامه سوق مسلمة أو مسلمة مي إن عدانه فرنسيسة هي دينة الإسلام كالسوق لي مسكيت كالله كيني إسلام نمدي بالله لقيني muddo markuu muslim ahaa buu gabadh bay markaas la yar sheekaysteen muslimado Soomaaliyada gabadhii buu aabaheedu u yimid oo gabadha waan jeclaaday ii dhisayadna way jeceshahay odaygii baa ku yiri maad islaamta adigu anu muslim baan ahay buu oo dhowr sano ma islaam baan ahay hal maalin masjidka kaama arkine wuxuu yiri marka la aadimo muslimiinta masaajida inta soo galaysa iyo inta haraysa iyama badan buu ka yidhaadeer ariyama badan inta haraysa badan wuxuu inta masaajida galaysa ku xaroonaysa xilliga la aadimo anigu kuma biirine kuwa banaanka joogan ku biiray buudi kuwa ku biiray marka aadaan ku dhacaya la tukanayo kuwa dibadda joogan ku jiraya kuwa soo galaya kuma jira buudi kuma biirin kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay ba hadalka leh waa jawaab meesha taala islaamnimadan ilaahay jalla wa ala waxa uu soo dajiyay ma hayna quraanka ku qornaata maaha ما هين دينتو ميموري أي كتالا ماها قرآن كوينو أوراق قرنا ذا لوما سود جن قرآن كواحد الله سود جي إن دات كنا الله سود دينتو أي كقرنات صلاة دي بالله نقول فرض يلي وين له لا بقول كبقول مسلمين تو صلاة دينا إلى علينا يام صوم كي بالله نقول فرض يلي وين له نقدان مسلمين تو بقول كبقول كوا صوم آيا قبض البصر كله نقول واجبية وين مسلمين تو بقول كبقول إنه هو جاي إلى اليام حرام تكدر هذا بالله يدي وين مسلمين تو بقول كبقول حرام تكدر هذا وين تذكر مسلمين تو أي نقدان ضد إسلام ما دو كشفوا يلعب تو ذاك موقت نكيد دونا يقول عمر بن الخطاب وأركو آية دا قرآن كو شقين إيسا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هاي يقبل وكوا أصحاب النبي محمد هل قفكوا هذه ما يسوق إلى المسجد حقه إلى بيت الله عز وجل الله أكبر هذا مغلان وعي هيان ودندول كيسدا ودغيين فدونا الليباني قول إلهي أكتي سيت الله جل وعلا قول إلهي باحيا عز يا شرف إلهي باحيا يسعد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلال الحبش رضي الله عنه الدون مملوك أبوها وما قال هذا ما كان لقود حدون صدور لعذابه لكن مركو أعمال إيمان لي مدي وكان النبي محمد أوليه يا بلال حليت ولا الشنقد هذا كبها الشنقد ودي جنة هرتي دان كم مغلي هل كان محدكم قاعد يشيك برسولكم كيوري والله هبينك بلال سيدي بو كو سخدي كولا تاhay habeenka farxad daradeed
madaxweynea ku ammaanay, manajerkiibaa ku ammaanayey, aabbahaabaa ku ammaanaya oo ciyaalka adiga kaa dhex ammaanayey. ilmaha marka la yidhahdo wuu farxayaa. ninka shirkadda u shaqaynaya marka la yidhahdana ninkii shirkadda iska lahaa ee kambaniga lahaa ayaa shaqa fiicnidaada hadalhaya markii la yidhaahdana farxad buu markaa qofkaasi rayrayn baa laga dareemayaa. haddii la yidhahdo wasiirka iyo ministerka ku ammaanayeyna ka sii daranba. maxaad u malaynaysaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa bilaal ku leh, yaa bilaal xalaytoole kabahaaga shanqadhoodii baan jannada hortayda ka maqlay. bilaahi calaykum, habeenkaa bilaal sidee buu ku sexday kula tahay farxad daraaddeed? siduu ku sexday mucaad habeenkii nebi maxamed, maalintuu nebi maxamed mucaad binu jabal gacanta uu qabtuu ku lahaa wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad, ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay. walaalayaal, waa rasuulka ilaahay hadalkaa waxa leh, waa rasuulka ilahi sal alla alay wasalam. ma aha shaksi caadiya hadalka qofka leh. inan yar oo 20 jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayuu nebi maxamed gacantaytuu qabtay uu leeyahay wallaahi innii la uxibuka yaa mucaad, ilaahay baan ku dhaartay waan ku jecelahay. oo maxaa lagu jeclaaday raggaas? oo ayaa jeclaaday? ma gabadh baa jeclaatay? ma madaxweynaa jeclaaday? ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysaa? ma munaafiq baa jeclaadaad moodi? waa muxamed calayhi salaatu wasalaam, khalqiga ilaahay abuuray kii ugu khayr badnaa, ugu sharaf badnaa, ugu karaamada badnaa ayaa ku leh yaa mucaad wallaahi innii la uxibuka. haddaad meheradaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga oo leh ilaahuw meheradayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan. aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaadda iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay. lisaanulqaal maha waxaad ku leedahay, waa lisaanulxaal waxaad ku leedahay. haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxa igala qiimo badan, ubadkayga igala qiimo badan. waxalii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas. ninka salaada dayacayna